madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa waxa uu soo gaaray diidda hore ee dagaalka gaar ahaan dhanka Caynabo ayuu soo gaaray isagoo oo waliba ku sii jeedo dhankaas iyo og oo uu sheegay inuu saldhig ka dhigan doono ciidamada SSC Khaatumo iyaga laftooda waxa ay halkaas ku diyaariyeen xuduudoodii u dambeysay iyagoo isku diyaariyay dagaal ay la gali doonaan maamulka Soomaaliland dhaawacyo iyo waliba maxaabiis hor leh iyo meydad ayaa laga soo gurayaa duurka gaar ahaan dhanka doodida waxa laga keenay ciidamo firxad ah oo halkaasi ku maqnaa 6 maalin u dambeysay maanta oo kale waxay ahayd maalinkii lagu kala baxay gooja cadde oo ciidamada SSC ay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan guud ahaanba gobolada SSC wax ka yar dhowr saacadood Somaliland annaha Ethiopia waxa ay xiraysaa xadkeeda ay la wadaagtay maamulka Somaliland iyagoo waliba sheegay inay geyn doonaan ciidamada nabad ilaalin dhanka og waa hadii caalamka uu ka ogolaado barnaamijkan waxa ila falanqeyn doono saaxiibkay Cornel Fragod oo si fiican arrimahan oo la socdo Cornel marka hore soo dhawow maalinkeeda waxaan ka wareysanay militariga iyo qaabkii meeshaas loo qabsaday maanta oo tadaba ku noqon karta ninkii Muuse Bixi waxa uu soo gaaray Caynaba og ku soo wajahan oo yiri wax ka dhigay saldhig isagoo waliba ciidan beeleed soo abuuray horta waa run waxa weeyaan 25kii bishii Agoosto hadda September baa maanta filaya inay kow tahay bisha 9aad ee 2023 maalinkaasi waxay noqotay maalin taariikh ay noqotay maalin waxay noqotay reer Khaatumo iyo wixii la oran jiray maamulka Soomaaliland ay kala baxeen waxaad moodaa reer Soomaaliland nimankan Muuse Bixi iyo maamulkiisu inay wareersan yihiin wareerkuna sideedaba markuu qofku zamanutii marka lagu rido waxa weeyaan maamulka iyo shacabkiisuba ma fahmaan reer banu Israa'iil ba 40 sano waxay ku jireen zamanutii bay ku jireen hadda dadka ka madax banaan reer Khaatumo iyo Soomaaliland dadka ka madax banaan marka ay qiimeynayaan military ahaan Soomaalidu in badan ama military ku takhasustay ama aqliga ku garanaysa waxa meesha ka dhacay iyo mustaqbalka garanaysa marka ay saadaaliyeen waxa la yiri Muuse Bixi iyo maamulkiisu hadii 6 bilood ama 7 bilood ee soo socota ay tababar dib u sameeyaan oo dhaqaale ururin dib u sameeyaan oo imaatin iyo shirar iyo dhexdooda musaalaxa ay sameeyaan Allahumma markaas laga yaabaa 50-50 in ay guuleystaan laakiin waxaad moodaa arinta noocaas ay dadka ma garanaysa khubarada ama dadka military ku xildheer ay tilmaamayaan arrin aan Muuse Bixi u muuqanin arrin aan maamulkiisu u muuqanin arrin beesha dhaxeed deegaanadaasi degtay Somaliland gacanta ku haysa aan u muuqanin baad moodaa meesha nimanka la yiraahdo RSC-na Ilaahay uu muwaafaqasiiyay markii ugu horeysay saaxiibo badan waan ku leeyahay RSC in badan baan ku war midooba in badan baa waxaan war magaciid jabiya midnima wax lagu gaadhay midooba ayda quraankeena waa badgaranaysa wax tusimo bihabillahi jamiican wala tafarraqu si kasta oo aad tabar iyo xoog u leedahay hadii midnimadaadu ay kala dhantaalan tahay meel ma gaadhaysa waxa jirta kilib yar oo ka daawaday siyaasiga dalka Kenya ugu caansan ninka lagu magacaabo Faarax Macalin yaa wuxuu yiri garaad jaamac wuxuu u qalmaa buuri ma garanaysa dalka Soomaaliya loo dhiibo waa runtii maanku laha gala dagaalka ee dadku ma garanaysa intuu mideeyay arinta mideeyay garaad jaamac waa wax waarinayna Soomaaliya idil mideyn kara weey marka reer Somaliland madaxweyne Muuse Bixi maanta wuxuu kala geeyay beelihii Garxajis iyo beelihii kala geeyay qabaa'ilkii ayna fay maad iyo colaad ka wada beel buu hubeenaya qabaa'ilkii wada deganaabu kala geeyay umada Soomaaliyeed waa umad Soomaaliyeed meesha ku noolaa iyo dhaqaalaheeda dhulka galiyay hadda magaalada Hargeysa ma rumaysan bariiska cad baa laga cunaa qudaartii ka imaanaysa koonfur iyo Ethiopia wax yar uga soo gala mooyaan waxa weeyaan baradhada iyo yaanyada wax yar oo lagu dalacay ayaa ciyaarka lagu sasabaa hadda ka hor waa ogeyd barwaaqada ka jiro Hargeysa saaxiibo badan ma kula intaas oo jeer baan tagay maanta Hargeysa hadii laga qureecdo lagama qadiyo صح marka arintaas horta waa nasiib daro laakiin dadka shacabka maxay u garan la yihiin intee mudaharaad qaadaan iska dul qaadi la yihiin gumeystaan kor saaran ma taqaanay dhiigooda cabay waa mid horta aan ka hadlayno oo waxaan leeyahay dadka reer Somaliland alaysa minkum rajulun rashid warmiyuus idinku jiro qof aqli garanaya sida boqor buur madow oo kale warmiyuus jiro qof dhihi kara war muusow war waan ka midaysanahay arintan aad leedahay Somaliland baan dib soo celin waan ka midaysanahay laakiin qaabka lagu soo celin karo laakiin qaabka lagu ma soo celin karayaan Faisal Bootan lagu geeyay adeero meesha
hana waalina ayar meesha fadhi wiilasha yararkaana meesha hanaga laynina صح wax dhaha waa lala yahay sababtuna waa laba xaalo markuu nidaamku military odagu waa military markuu nidaamku military yahay waxa weeyaan habeenkii baa lagu la bixi waxa weeyaan dhaqaalaha baa lagu burburin waxa weeyaan dad aad gareyn baa laga horkeeyay marka horta dadka shacabka waa dad la xiniyad bixiyay صح ee shacab intay maanta mudaharaadaan oo fikirkooda iyo siyaasiyiintu caqligooda magarasa xor u yihiin meel walba ay sameyn karaan ma aha taasana keenaysa laakiin aniga waxaan ku soo gabagabaynayaa ninkan Muuse ee maanta og baan tagayaa RSC waxaan ugu baaqayaa duqaas waa duq adeerkiin waa duq Soomaaliya waa duq magaranaysa muslima waa nin magaranaysa dhibaato hay dadka reer Sanaag iyo Sool iyo Sanaag ay haba u geystay waa dad oday Soomaaliyeed weey waxaan leeyahay intaad soo qabataan oo waliba biyo qabowsiisaan ilaa wareersan yahay Faisal Bootan intaad u geysaan garab dhigo ayar halka ku xanaanayaan dheer oo ay suulinta baasha ma garanaysaa qaadkiisa u geeyay baashiisa u geeyaan leh si fiican waa sidaas waa ma santahay jabhadu hogaaminay oo fareen waxay 5 maalin kaliya u qabteen musabiixi oo ay dhaheen anaga go'aanka ka soo baxay beelaha habar jeclo nama khoosayo dulmigi aan ka dhiidinayna uu taagan yahay ilaa uu Muuse meesha ka tagana buurta ka digay meeno 5 maalin kadibna duulaan qaadina horta waxa weeyaan jabhada oo furan uu hogaaminayo horta halkan hambaliyo bogadan baan uga dirayaa صح dulmigii lagu hayay goboladan bariga Soomaaliya wixii loo oran jiray haatan reer Khaatumo nimanka la baxay maamulka gaarka aan noqday wixii lagu hayay umba ayagana beelaha garxajisay dadka lagu hayay صح dad aad fara badan baan lagu hayay dulmiguna sidiisaba muddo yar oo kooban way ayuu busii jiraa صح wax waliga ay sii jiraan ma aha oo fureen beelaha garxajisay waa sidoo sheegay afayeenkiisa ummadii reer Soomaaliland wax Allah la qof kasto oo dulmiga diidan u dhahay kasto oo dulmiga diidan iyo qof kasto Muuse ka hor yimidba halkaas horta isu wada dhiibay maanta jabhad balaaran oo ciidamadeeda iyo teknikadeeda aan la qiyaasi karin way ciidan maanta ku hortago leeyahay Soomaaliland baa badaysan ka hortagi oo meesha ka hortagina maanta ma ay jirto nin baa cadaalad ugu dhawaad reer Soomaaliland isku wadi laha ninkaasina wuxuu ahaa ninkii loo oran jiray Cabdiraxmaan Ciro oo in badan arinta uu kariyo in badan samaray waxa weeyaan ninkiina maanta wad arto wuxuu fara gacanta ku haya ma jirto bal waxa la leeyahay isaga oo jabhadan oo fureen hoosta kala socda oo le magaranaysa magaciin jiray wax kala ma hayna wadad ku haya iyo haddana wuxuu leeyahay qaranku waa in la soo celiyo marka waxaan ugu baaqay Muuse dhiiqal oo galiyay Muuse dhiiqal oo galiyay marka Soomaaliland waa dad wax fahmaya waa dad ma garanaysa maanta ay taladu ka wareersan tahay anigu waxaan dhihi jabhada intii la taageero oo markay jabhada si guuraysto Soomaaliland intii la soo yimaado horta balbeerahan dhexe iyo dadkan Samaroon intii soo yimaadaan ha wada tashadeen way Samaroon inga talo kuma jiraan oo qorina ma qaadi karaan waxay sameyn karaan mar waa loo taliyaa bas ma waa loo taliyaa la soo gooyaa loo geeyaa waa run laakiin saynta gal meeshu kaga yaalo bay kaga yaalaan marka talo kuma daraba ha marka waxaan ka wadaa markii bal ayaga intii la soo yimaado wixii meelaha degantay soo yimaadaan oo dawlad ku meel gaar ah dhistaan marka kadib hadii wada hadal ay la galayaan nimanka reer Khaatumo oo ay leeyihiin divide by two aan wuxuu qaybsan wixii Soomaaliland la oran jiray hadda ka rawaanay ha ku dhahan haday diidaana wareenka maanta way ka tabaroon yihiin oo harti iyo ummad Ilaahay isla ku hayaane xabadna waxba ka qaad maysaan waa la yaqaan siyaasaddiina hadii wada hadalkii ku diideen hadii banaanka nimanka ka mara Suudaan ba wata ka go'day Suudaanti weynaydi waxa weeyaan ayar samro ka qaata idinkuba 30 sanad ka maqantiin dalkii loo oran jiray Soomaaliya adaweyn dhankan Itoobiya maxaa ka baxay ay leeyihiin ciidan geerina oo ugu tala galnay nabad ilaalin si aysan dhibaato dam u dhicin horta qoladan dawlad deegaanka Soomaalida arintaasi xilli fiican bay ku soo hagaajiyeen haday leeyihiin ciidamo nabad ilaalinaan geynayna oo u dhaxeeya ma garanaysaa reer Khaatumo iyo reer Soomaaliland intooda kale waa arin muhiim ah weey laakiin qoladan waxay u arkayaan ciidamo yar beeraysan oo ma garanaysaa ciidanka waa ciidan Itoobiya ciidan beelad ma laakiin waa ciidan Itoobiya laakiin haddana dawlad deegaanka Soomaalida ayaa loo sii wakiishay oo saraakiisha hogaaminaya waa saraakiil dawlad deegaanka Soomaalida u dhashay oo ciidamo liyu booliska weey ciidamadu waa laga yaabaa kuwa kale oo Itoobiyana inay ku jiraan laakiin waxay ka amar qaadanayaan saraakiisha liyu booliska ka amar qaadanayaan maadaama dhaqankii iyo beeraha si kala degan hawlaha ay kala yaqaanaan ayay ka amar qaadanayaan hawshaasi hadii Soomaaliland ogolaato waa sax laakiin qoladan reer Khaatumo laba gooraba way soo dhaweynayaan inay soo dhaweeyaan waan ugu baaqahayaan waxay kaloo maamulka deegaanka ay sheegeen in aysan ama Soomaaliland ha noqoto ama reer Khaatumo ha noqotee inaan jugjiga aan lagu qabanayno wax shirara oo labada dhan amidna ka soo jeeda inaan lagu qabanayno arintaasina waa sax oo reer Khaatumo hadda maanta meel ay shir ku qabsadaan
uma baahno dee toodiiba dhulkoodiiba haystaan shalay dhan waa magaalada lascaanood bay ka socday maxaa shir weyn iyo ka socotay oo hadday wufuud u imaanaysay haddii wuxuu kula soo waa meel ammaana wey wata hadda lagu sii wada qulqulahayo anaaba isle horta bal meesha soo arkaa ma booqataa yaa isleehayba marka waxa weeyaan qolada dowlad deegaanka Soomaalida qolada haatan loo jeedo waa Somaliland way u furanto hadda maanta meesha qudaarta iyo ilmahooda lagu daaweeyay ee ay yimaadaan ee dhashooda u taalo waa dowlad deegaanka ilaa har iyo jijigay soo wada socdaan marka arrintaana de colaad ma anagu colaad kumaana maartay kumaana ku hirgisin mana ku maqnayn marka waxa weeyaan baabka iska xiran wadadaas ay idin furan dhakhtar noqotaya iyo kala noqotay ka faa'iideysta nimankaana haddii wada hadal idin ka diidaan wadada kale idin banaan wada hadal haddii wada hadal idin ka diidaanna iscafina dhaho nimankaasi kala gurta haddii kalena xabad waxba ka qaadi maysaane haddii waxa weeyaan ismac salaamaysa ma ku talin lahaa aad ama santa daawadayaal sidaa la socotaanba waxaa la soo gaarsiiyey magaalada Lascaanood maxaabiis hor leh kuwaasi oo tani markii dagaalka uu bilowdayba duurka ku jiray ayaa hadda dhawaan yaa la keenay magaalada Lascaanood sidoo kale meydadba duurka matalan laga soo dadgureen ilaa hadda soo gaariyay magaalada Lascaanood maalinkiisii bay markii dagaalka uu dhacay maanta oo Jimco ah ayuu dagaalka matalan ku qabsaday Somaliland ilaa hadda firxadkoodii ayaa duurka laga soo ururinaya ciidamada SC Khaatumo ilaa hadda waxay ku jiraan heegan iyagoo matalan u diyaarsan waxay ugu magacaabeen duulaan xaqdarra oo markale uu soo qaadi doono Muuse Biixi Cabdi weliba nidaamkiisa ay sanamta muqaashir garaa sabtinina la wadaag